dagaalku marka wuxuu ka dhaxeeyaa markaan soo aruuriyo waa laba qodob bes kaliya wax kale federaal iyo amni asaana iyo haba yaraatee ma jirto waa laba qodob kaliya qodobka koobaad waxaa weeyaan waqtigiin yaa dhammaadee dadkii inta ku laabatiin xisaab celin u sameeya aad madaxda u eedeen hadday dib idiin doortaanna cod ka raadsada hadday idin diraanna sidii federaalku xilka u wareeji jira adinkuna xilka wareejiya forum cabdiqaasim ka soo bilow ilaa maantay madaxweyne federaal oo isku dhajiya xukun ma jiri mid walba waa wareejinay ha isku dhajinina haddii laydin diido iska wareejiya xukunka qodobka koobaad oo la isku haysto waa kaas maya dadka halay caburiyo maya lacagaan ku gato codadka halay siiyo oo baarlamaanaad ku gato maya muxuu ahay dadka waa qodobka labaad lagu haysto xawayaan dawladdu hadda maadaama loo socdo in musuq maasuq lala dagaalamo oo adduunkii deynkii cafiyo oo muxuu ahay xisaab oo transparency oo kaleera la sameeyo oo muxuu ahay lacag walba meeshii loogu talagalay la geeyo war lacagtii aad qaadateen oo laydiin dhiibo adduunka laga keenay xisaab celinaa la iska rabaa deymankii sidii noogala dhiibo imtixaana ku jirnaa SMB barnaamij la yidhaha hadaa socdo dadkii aad gaarsiisan iyo xisaab maya nalama dhihi jirin taas waxayna waa duuduuba jirnay jeebkaan gasho jirnay ma jirto labadan arrimood waa labada la isku haysto wax kaloo meeshaan yaal iyo waxaan uu ka hadlaayo xildhibaanku asagoo mahadsan haba yaraatee meesha ma yaaliin meesha waxa yaallo waa labadan arrimood marka labadan arrimood waxa weeyaan in la haysanayo nimankii la leeyahay waa qabqableyaal ha noo joogaan okay waad qodobaysatay maxaa kaaga baxay iyo in la leeyahay ma xisaab celin lama lacagta la iska siiyo ayaga iyo meeshay geeyeen lama yaqaan waa labadan arrimood iyo ma doctor waa dagaalku waa intaas intaana su'aasha kale u gudbin ma waxbaad ka dhignaa hadalkiisa ها idinjahaya waxaan ka ilahaa horta dastuurku ma qabo maamul goboleedka in la burbursho la faragasho dastuurku ma qabo amni inaan la sugin dastuurku ma qabo war dastuurku ku galgalanayo lagu rafanayo inta horta dastuurku wuxuu qabo baa nimankaan wax ka hadlay kow wuxuu yiri baarlamaankii labayna tashan oo baarlamaankii lama soo hadlin baarlamaanka la tashay horta xagee yaala baarlamaan xukuumad ka milmay oo 74% xildhibaan noqdeen oo hadda loo yaqaan golaha xukuumadda baarlamaanka loo yaqaan horta yay la xisaabtamayaan waa qodobkaas midda kale xisaab celin baad ku celcelis qoladii dejisaad kamid ah dastuurkaas oo beriga wasiirka rabtaa waliga wasiir ma qaadan marka aad ugu dartooda wasiir sabareed maxaa ugu dhigi weys midda labaad idinka dastuurka soo daray midda labaad xisaab celin buu ku galgashay saaxiibkay war meesha xisaab gacal doctor runta isu sheegno aniga warkayga waa cadiya ma cadna tir cabdi barre warkayga wuxuu ku cadiyahay xisaab nimankaan iskuma haysto shirkiyo maalmihii u dambeysay maalintii u dambeysay beela warqad buu soo girgiray wuxuu xisaab celin baan ka rabaa lacagta la siiyay lacag baarlamaan la marshay ma ahayn lacag wasaaradda maaliyadda ogtoo beela gaar u ahaabay ahayd oo bangi waa la miisaaniyada ku jirtaa waa iyadoo kaashaha gacanta loo gashay miisaaniyada ku jirtaa axmed madoobe waa tuu sheegay oo kaash baa gacanta loo gashay horta musuq maasuqaad ka hadlaysay nimanka musuq maasuqa lacagta ku baxsheen markay arkay inay khaladaadkooda saxayana waxay yidhahdeen xisaab celin baan rabnaa waa qodobka saddexaad oo shirki kismaayaha ayagaa musuq maasuqaad sheegaysid 50 milyan baa dawladda soo gashay 2 milyan iyo milyan bar maamul goboleed ay siiyeen la aragay horta iyaga yaa la xisaabtamaya cidii la xisaabtamay horta aaway waa joogaan hay'adii war hay'adii xisaabtanaysa ma joogtaa runta isu sheegay la ku tusaad waa joogaan midda labaad haddaad leedahay muxuu ahaa maamul goboleed maxay u hadleen war adeer dalkan waa la wada leeyahay koox gaar inta maalin kasta jeebka ma gashanayso waa in la wada tashi dawladda federaalka la tashadaan ma socon waa in maamulada la tashataa waxa lagu heshiiyay waa lagu heshiiyay waxaad ka hadashay gobolada ma tagi karaan yaa sabab u ah waxa la isku haysta kamid maamulada intee baan war wadadan aan furno war ciidankii aan isku dhafno war aan muxuu ahaa hubkii keena war dhaqaalihii aan ku fiilahayn keena haddii wax alaale wixii dawladdu ka socon weyday oo amni darrada ahayd waxaa mas-uul qaa'eeda waxa iska dawladda federaalka mas-uul iska ah ayadaa la raba inay istaagto ayadaa la raba inay ciidankii tayiso ayadaa la raba inay meeshii tagto ayadaa la rabaa baahida inay soo ogaato intaba way ka ayna qarsato waaba ogtahay in la tigi waayey oo ciidamadii soo cesheen taliyaashii waaba ogtahay lama soo celin hal soo ceshay sababta loo soo ceshay khaladka iyagaas kale shirki u dambeeyaa lagu shiray waxaa lagu heshiiyey oo ay dastuur jabiyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha go'aanka gaaray waxaa lagu heshiiyey shirkii baydhabo cid aan meel kastoo la magacaabayo cid kastoo meel usoo magacaabaysaa waa in maamul gobol soo ogeysiiyaan khaladkii sharci galan baa maanta haysta marka gacalo horta runta xaqiiqda dhabta ka leexanine eed aan jirin cid ha saarine khaladka ugu weyn in goboladu loo kala socon waayo in awaara diyaarad soo raaco in axmed madoobe intaa soo xukumo mas-uuliyaddeeda waxaa iska dawladda federaalka iskale oo gabtay shaqadii amniga gabtay shaqadii howlgelinta gabtay marka nin maskiin oo meel joog waxba aan haynin ha eedayn ayaguna dadkooda gobolada ka gubanayaan soomaalidu
heer maanta la gaaro dowladda heerkaasa gaaro waxaan doonaan samaynaya adeer maanta lama joogo